بسم الله الرحمن الرحيم saaxiib yaal soo dhawaada asxaabtayda Hagarlaawe family iyo asxaabta guud ee ku xiran YouTube-keena Seki Hagarlaawe Telegramka iyo TikTok-gaba waxaan idin leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalixul acmaal sanadkan say u badnayd intiisii hore mashquul saa'id ah baan galay shakhsiyan live streamki waa yaraaday maalmo keliya baynu live stream ba galnay waxaan haddii la isku wada daro 20 cisho gaarayn 6 bilood oo hadda dhammaanaysa sidoo kale waxaa jiray mashquullo aniga khaasi ah marka waxaan rabaa haddii eebbe ka dhigo maadaama howlo badan aan 6 bilood oo hore dhameynayay hadda aan rabo inaan soo focus gareeyo live streamkeeni iyo sidii aynu analyskeeni every single day ahaa iyo shaqadii guud ee dhalinyarta Soomaaliyeed ama asxaabta Soomaaliyeed aan u hayay waayo fariinteeda u badan WhatsApp-kayga Facebook-gayga iyo Telegram-kaba waxa weeye live streamkii aaway live streamkii maxaa ku dhacay ma nabad qabtaa ma soo celin doontaa inta i weydiinaysa nabad qabkayga iyo inay wax iga sii noqdeen am okay alxamdulilah rabbil caalamiin waxa weeye howlo faamil howlo khaasi ah baan ku mashquulsanaa inta u badan safarra u badan thank you for asking marka insha allah next 6 months oo 6 bilood 2023 dambe I hope inaan consistency wax wado waa adduun kolley waxaa soo bixi doonaan arrimo kugu soo istaagi doonta laakiin consistency inaan wadno plus ogow 3 hours ayaa iga baxa live streamka every single day last year so 3 hours koorso kala ku baran karaa master aan ku dhammayn karaa double master aan ku diyaari karaa triple master aan ku diyaari karaa waa ku safri karaa waxbaan ku akhrisan karaa soo laakiin idinkaa idin siiyey weliba si free ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan marka waxaan rabaa si aan live streamkii u soo celiyo hal criteria idinku xiraaya dhammaantiin oo ah YouTube-keenu hadda 8,000 oo subscribers u maraya oo intaasna nooma qalanta xaqiiqatan waayo 80,000 ama 800 oo kun aan u qalanay waayo sababtoo ah waxyaalaha value-ga leh ee qiimaha leh ee qiimahoodu aadka u sarreeyo ee la taaban karo waxay simulation kale ee live stream kale oo wax walba aanu nahay ciddii u horreysay ee samaysay haddana 8k waxaas nooma qalanto waxaan rabaa markaa inaad 10k gaarsiisaan insha allah this week ciidka hadduu dhammaado insha allah next week waa bilaabi doonaa maalintuu 10k gaaro live streamka inoo bilaabay inta ka horreysa wax live stream ah oo guud oo YouTube-ka aan bilaabayna ma jirto haddii ay even noqoto inaan bilowno waa inaan private u qabsano Discord-keena iyo markaas Zoom-keena marka waxaan halkan rabaa inaan kaloo idinku sheego aniga muddo maadaama aanan trade gareyn hadda bishan aad uma trade one trade aan qaataan buu malaynaya mise 2 3 wax 3 ma gaarayaan laba losa iyo 1 euro USD oo weyn ah tiiwinka ahayd baa wax walba aan u baahnaa aan ka qaatay inkastoo aanay badnayn dhowr boqol oo dollar kabal $100 laakiin alxamdulilah ala kulli xaal maadaama muddo trade gareyn suuqii ii dhaafay consistency aanan ahayn maanta waxaan rabaa inaan sameeyo simulationka idin furi maayo oo anu markaan simulation samaysanayo marka idinka idin samaynayo kala duwan marka anu samaysanayo waxaa laga yaabaa inaan 20 minutes 15 minutes simulation dhan ku samaysto waayo sharaxaad ma jirto waxyaalaha aan sharaxaya ma jirto waxyaalaha qurxinaya ma jirto waxyaalaha leen saaranaya ma jirto sababtoo ah already waxaan aaday igu fududaadeen laakiin qofku markuu qof bilow ah joogo qof dhammaada joogo community-ga aan zoomka u furo oo ama simulationka aan u qabanayno software for forex-ka dee khasab waxaa in si details ah wax kasta aad u dul istaagtid marka details waqti uma hayo anaa simulation qabsanaya marka waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo simulationka muhiimaddu leeyahay iyo waxa uu yahay simulationku waa barnaamijkan dad badan waa garanaya Hagarlaawe Academy ku xiran waayo akademiyadii u horreysay ummadda Soomaaliyeed u keentay baan nahay simulation markaan new simulation dhaho waxaan awood u leeyahay tusaale ahaan inaan gold oo kale soo qaato aan waqtigaan dooro doonto akoonkaan rabo furto xilligaan rabo aan ka dhigto aan bilaabo markaa trading bilaabo tusaale akoonkayga hadda $10,000 baan ku shubtay $100 ku shuban kartaa $20 ku shuban kartaa muxuu ahaaye $100,000 waa ka dhigan kartaa waxaa rabtid marka $100,000 kan ka dhigay start simulation baa iraaday start simulation marka iraahdo let's say 15 minute time frame aan kusoo daray one time frame waayo tusaalaan ka wataa ma rabo inaan wax badan galo open chart baan iri kan iga xir halkan visual mode baan ka dhiganayaa this one okay so one second visual mode halkaas this area here okay sorry okay visual mode baan ka dhiganayaa si marka uu aanu waxba iga qaadan xisaabinta riskiga halkan lot ku geli maaye riski baan ku gelaya tusaale waxaan dhahay mar walba 1% riski gare akoon 100,000 1% kiis oo $1,000 akoon 10,000 1% oo $100 so isa ku xisaabinaya magic-kiis oo kale andan xagga iga leexi baan dhahayaa okay soo soco waa weynaynaya candles baan ka dhigayaa
waxaan ka dhigayaa properties oo ah inaan shumaca kor iyo hoos u kaxayn karo sidan oo kale. Alright, marka hadda ma trade garayn sababtoo ah waa 12 habeenimo. 12 habeenimo ma crazy baatay markaa trade garaynaysa iska dhaaf ma trade garayn. So waxaan geynayaa London oo kale tusaale ama any time of the day. Candleski anaa baacin kara de eeg u fiirso xoog u baacin karaa laakiin rewinding waa iska xiray haddaan sidoo candle dib u go wuu iga diidaya eeg wuu iga diidaya no buu leeyahay okay marka haddeeroo kale waxay saacaddu marta 4 subaxnimo lise trade baan qaadanaya oo waxaan rabaa inaan halkan trade ka qaato eeg dad badan akoomay ku cararaan laakiin ma oga muhiimadda simulationka uu leeyahay u fiirso trade baan qaadanaya tradekaas hadduu khasaaro noqdo iyo hadduu faa'iido noqdo waxba igama gelin sababtoo ah tusaalaan ku wata let's say oh no kan igada laba lane baan dhigtay kana waa resistance kana waa support waxaan rabaa inuu hadduu mid ii jabsado tusaale waaye tusaale khasab maaya inaan sell okay hadda hoos uu kale igu xirmay baan dhahaya candle-ku furan yahay caadi u soconaya dee toos sida marketka caadi u soconaya waa yara dheeraysiin karaa times halkan oo kale times 5 waa ka dhigi karaa shan laab inuu ku socdo speed ku soconay times 10 times 15 okay hadda maadaama uu lowgi jabiyey oo kor u noqonayo okay let's see halkaas kalaan rabaa sell inaan ka qaato labadan visual mode baan ka dhigtay isaga ay xisaabinaya riskigayga haddaad doontid waxaa ka dhigan kartaa lot oo adaa xisaabsan tusaale ahaan waxaan ku gelayaa lot 5 oo kale maadaama lotka badan aan gashan okay waxaan rabaa tradekaasi meeshan uu maraayo oo ah iisoo qabo barta inaan interi ka qaato stop losskayga haddaan doono candlekii hore haygiisa dhigo ama halka dhigo targetkayga waxaan rabaa inuu meelahan oo kale noqdo ama halkan oo kale noqdo so tradekaasi toos buu u furan yahay toos buu u soconaya oo marketkii caada wuxuu ku muuqan doonaa lacagta uu ii wado halkaas ka muuqan doonta akoonka intuu ku daro percentage halkaas ka muuqanaysa halkan haddaan taabto official markii traderska haddaan taabto waa meeshan ka manage garaynaya half xid potential xid kan xid aan so on marka sell oo kale aan baqaatay lot 5 baan ku galay marka aan sell ku dhufto okay marka aan sell ku dhufto stop losski waa kan anaa jiidi kara meesha raageyni halkaa dhigi kara xagga marka let's say candle kor haysan dhigay 24 bibo stop loss waaye u fiirso waa 24 bibo stop loss oo u dhiganta 1200 1200 ku khasaare hadda khasaare traderka TB-gaygana waa kan hadda isaga waa ka qaadi karaa jagta haddaan doono isagana inaan soo jiido waaye meesha TB-ga kan buluuga waaye TB-ga oo kala soo jiidaya candleska qurxin kartaa okay traderka waan qaatay saasaan ugu jiraa u fiirso haddaba caadi baan u maamulayaa traderkii u fiirso hadda minus yar buu igu hayaa tobanka dhig eeg hadda so inuu interigayga ka sareyso ma jeedin halka 300 minus waa 200 minus waa hayaa 200 buu taagan yahay bartiisii buu taagan yahay 300 negative oo 400 minus igu hayaa already awal 1200 ay iga jirta u fiirso $1200 ba ku jirta oo risky ah waayo lot 5 aan ku galay eeg lowgii jabiyay muxuu sameynaya kor u noqonaya okay maxaan samayn karaa marka waa manage garayn karaa half baan xiri karaa intaan halkan waa istaajisan karaa traderka eeg u fiirso waad istaajin karaa waa deyn karaa halkan dhala hore u boodi karaa haddaan doo speedkan badin karaa inta uu ku socdo hadda waxaan dhahayaa day risk management ahaan maadaama candleka entry ka qaatay bulsh uu ku xirmay kii kale uu haygiisa jebiyey half baan xiraya so muxuuna igu hayaa akoonkayga riski inta igu hayaa 0.5% oo u dhiganta $530 okay marka waxaan dhahayaa traders baan tegaya markaan ku dhufto modify baan dhahaya modify may waa stop loss ka soo qaadadiisa waxaan dhahaya close partial lot 5 ii furan waxaan xirayaa let's say lot 2 ka mid ah xiraya close baan dhahaya and then halkan maxaan kaga baxay falaadha u fiirso taaran half aan ku waxaa ii furan marka haddaan ku noqdo tirka haddaan waxaa ii furan sell halkan oo kale u fiirso aan ku saar calaamad lot 3 ii furan size-ka ii furan waa 3 lot 5 oo ahaa half aan xiray risk management-gaygaan ku dabaqaya aqoonteeda ku dabaqaya aan bartay marka waxaan isku dayay in akoon baasin karo aqoon buugi qalin oo ay hor yaalla hadda right now wallahi buugi qalin ay hor yaalla eeg stop loss iga dhacay toos maxaan ku khasaaray 0.95% awal maxaan ugu talagalay $1280 oo riski ah ku jirtay maxaan khasaaray $950 imisaan badbaadiyey $300 maxagee ka timi halfka aan xiray weliba risk management-ga markaan anigu rabo inaan sameeyo kani markuu bullish ku xidhmay half baan xiri lahaa ka kale hayga markuu jabiyeyna half kan aan xiri lahaa totally laakiin tusaale tan iga ah okay
waa dayn karaa haddeer oo kale waxaan dhihi karaa maadaama shanta subaxnimo ahayd buuggii qalin ee horyaal waa kan kaamirada okay kaamirada ma furi karo sorry waa ka buuggii qalin ee horyaal trek koowaad waxaan dhahayaa los maxaan u khasaaray sababtaa maxaan sameeyey sababtaa suu ahaa sidaasuu sameeyey 4 hour kuseoka 1 hour kuseoka 3 minutes saas isugu wada xiraysaa wixii okay another trade aan qaato dee haddaan doono aan dhaho aan yara baaciyo London session tago waay hadda shanta subaxnimo ahayd 6 subaxnimo waay hadda okay London baan tegaya London Open 10kan tegaya waa xilligaas Foriumne I hope inaan trade fiican qaato simulation fiican okay waa kan suuqan uu soo baxay suuqan oo kale okay falan iga diliida okay diliidi suuqan oo kale waxaan dhihi karaa okay wuu soo baxay wuu noqday hay buu samaystay laakiin aad si fiican u samaynaysa hadda waxani waa jaaba aan wado oo lefti baad eegaysaa 4 hour bas hadda 15 kaliya igu jiraani 4 hour ha soo eegaysaa lefti baad eegaysaa key levelska u eegaysaa waxay u eegaysaa xilliga uu candle ku joogo riskigaaga dad waxa ka dhigaysaa beer risk percentage waa ka dhigaysaa laakiin let's say trade kale aan idin tuso aan qaato haddaan leftiga si aan u eego waa eegi karaa kor baan labadan iska qaadaya kore leftiga muxuu marayaa halkan uu maray clean ilaa iyo lowga ma bixin karaa 1708 okay sell baan rabaa inaan qaato lowgu jabiyey okay sell baan qaadanaya markan risk baan ka dhiganaya mar walba waxaan rabaa 1% ka badan inaanu gelin suuqaas so waa sida risk management ugu fiican stoploskii waa candlekii wareegiisa around here haddaan doono let's see okay targetkayga TB-gayguna waa lowga marka ujeedaan maxaan sameeyey stoploski entry-gayga waa ka stoploskayga waa kan TB-gayguna wikifilkaasaan ka rabaa okay marka waa for example trades aan qaadanaya maaha aniga hadda aan qaadanaya oh stoploski maxaa iga helay sorry oh yes stoploskayga eeg muxuu yahay 13 bib halka ka fiirso kor ka fiir stoploskayga waa 13 bib oo u dhiga $990 haddaan khasaaro TB-gayga waa 24 bib oo u dhiganta 1800 haddaan faa'iido oo halkaasuu igu xisaabinaya already waan ogahay wax kasta okay waan galay suuqa ayaa min waa ku jira waa kala bixin karaa okay xagga usoo durkin karaa suuqa si ka rabaan dhihi karaa 5 minutes waan kusoo darsanaya eegaya 15 10 minutes 1 hour okay let's go don't go let's go enough markaasuu kor aado muxuu igahayaa minus $600 minus igu haya 1% aan ku risk garay oh second trade oo negative gold ay ugu dhacay hay maxaanu khasaaray isna waa qoraya ka saddexaad saas kale waa qoraya mar walbana risk percentage isticmaal waayo kana kuu fiican si akoonka ugu qarxisid waxa u baahan tahay around hadduu funded account yahay 12 trade oo isku xigo wada loo socda 1% risk garaysid marka 1% ha ka badin bear trade maalintii 2 trade qaado aan soo marka aniga saas raayna sameeyo in 20 minutes 15 minutes 30 minutes haday ugu qaadanayso and then bari ma trade garan doono jimce waayo week garan dhan lama socon fundamental lama socdo xagga wax maraya lama socdo sabti axadana waxa furana isniinta inoo balan haddii eeba weyn ka dhigo saaxiibayaal marka simulationka ha la ogaado xataa waa daawacan kartaa traderskaagii waa kuwan historygii traderskan qaatay oo dhow kuwa inta biban khasaaray wax kasta statistics baan dhihi karaa kadibna waa daawacanaya dhammaan waxaan ku xiriirsanaya computerkayga okay kadibna haddaan doono simulationkan markaan rabo inaan hadda ka mashquulay call baa igu soo dhacay ama hawl kale igu soo baxday waa ka yara mashquulay xaajiyadii baaba ku yeedhay waxaa samaynaysaa safe baa dhahaysaa simulation kor safekaasoo kala tagaysaa ande meel baa gashanaysaa hadhow maalinta dambe aad tarigareynaysid isla intii uu kaaga soconaya isla meeshan lee kaaga soconaya intaa los ku jirtaa ku jiraysaa intaa weyn ahayd baa wax walba tabtooda ku ahaanaya simulationka dhan waxay computerka hadda doonto waa daminaysa marka saaxiibada qaaliga ah ciid mubarak taqabbal allahu minna minkum saalihul a'maal intaas weeye xaqal ciidka aan idin siinayo marka nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ku ciida